سلطانك وحيري ما يركي أغلبية ده هالك فردية ورنتها لكن أغلبية ده رجع صوص على سلطة ويدينه ده مدحوين السراي مدحوين مصبي حبا كان دقيقة ما يرنقض مركار اللي بنتها روض نسينا سهرت فرحدة كيسوي حكتها واحد نقول يسها أو إنه قردادي دونا ياسين حاجي محمود حير فرطون إنه يسقنا معلومات كفر يسنا دي الله ده نورت وقتينو مركدين ده سامان تعال كان أوقف فتان إسبهاي سجبا هايستا ودور وقت إسبهاي سجبا فرديا sababta qolada kulmiyo u yaraade waxa weeye de gobolka waxba may gashan hadda kala kuraastaas oo dhayaga buuxin la saaka waa ogtiino xaaladda maanta awdal ka taagan waxa weeye kulmiyana aan waxba gashani waa shirgudoonkii waka halka fadhiya Cali Xaamid Jibriil de gobolkii saaka waxa uu kamid yahay shirgudoonka isbahaysigaana siiyay sidaas keentay maanta in isbahaysu halkan tayga soo xidho kulmiyana waxaan leeyahay warda weynagii sufaani jirnay xafladda yar xariga ka jaraysaan ba kuraasta buuxisaanay noo dulqaata annaga la madashan maanta gobolka wuxuu meelaan gashan bormo waxaan ognahay in laga unkay jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ognahay inay tahay gobolkii aqoonta waxaan ognahay gobolkii ilbax waxaan ognahay gobolkii xadaaradda inuu yahay Somaliland unkankeeda arrimaha siyaasiga iyada ku suntano Sheekh Cali Jawhar uu kacay waligi dawal la hadlayo dawal buu sii wakiish Somaliland wanaageeda boorama laga shaqeeyaa marka maanta nasiib waxa uu helay inay Somaliland qurux badan ay sii dhisaan عبد الرزاق خليفة أحمد وقدوميه برلمان كانوا ودنا دعادي شيخ البلد كان قاطو ساسو كله وعن سلايا هاي ننكي دعاء بورا ما قاطي سواء تجيبه أيوم با ماشى إلى هاي صار دونا ننكي سحلنا السعيبة دي بدراي وأنا ميزانك وحسن لي هاي بموتشنا ساعة إن مدن تي سومال لا نودا اللوك اللي هرينا ده حلقة عتان سلاك تري boqolaal qof baa fadhiyaan kala magacaabi kareen kalmad kaftanaan ku gabagabeynayaayo awdal hadii lagu yiqiinay malaha ma sheegay yiqiinaan maanta sheegay inay Somaliland dhistay waa ummadda koowaad ee cunsuriyada la dagaalantay awdal hargeysa waxay ku suntan tahay inay 22 kun oo cod ay magac kaga qaadatay Somaliland iyo Soomaaliba oo ugu hiilisay awdal waxay ku suntan tahay inay 30 sano ka hor adeerkay Ibrahim Daar oo familigayga hoosa inantooda ay siiyeen oo inama cadcad iyo habla cadcad ay u dhashay bartaaniga jiro Soomaaliya ku faataa baafiya siyaasiyiin fara badan baa fadhida horta waxaan aad iyo aad u salaamayaa Maxamuud Xaashi Cabdi oo anagu saaxiibo dhowna ayaan gaar u salaamayaa ujeedo aan leeyahay ku salaamaya saaxiibtinimada loo weeyay si kala hoo qaadanaya qolooyinkii halkan ka hadlayay isbahaysiga ayaa lagu hadlay isbahaysiga annagaba amaana annagaba soo dhaweeyna laakiin waxa isku bahaysateen madasha iyo golaha laga arko faratoon uu taagan yahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibkay xasan laab saalax xildhibaan xasan aad baan bogaadinayaa run saaxiib isku dheer baanu nahay waxa laga yaabaa in dadku sidaa noo aqoon saaxiib dheer baanu nahay waxaan ka mid ahaa raggii wax ku lahaa hamigiisa siyaasadeed inuu baarlamaanka isu taaga baan ka mid ahaa salaantiisa gaar kaana waa isku leenahay oo waa ku bogaadinayaa xaflad hore oo aroosana yaray buu igu tuuray hase yeeshee waxa ka soo bixi weyday isku xisbina waanu way ka soo bixi weyday ninka la yaxsan laakiin waxaan leeyahay waa qoori fagaaray ku soo sheekootaay war kurmiyaan laakiin binaadamku aragtiya uu ku kala duwanaada madaxu dadka isugu ma yaal aniga xasan bay isugu dhawo
dee waxyaalo badan baanu ku kala aragti noqon karaa. halkan xildhibaan barka baa isaguna igu soo leexiyey arrimo anigu maanta sodog baan ahay sida cali sheegay sodog baan ahayoo sodoguna waxa weeye sidii baan ahay ninkii yidhi intuu reerkii u garnaqay inankaa gabadha qabana halseeg waradna halkuseeg waa seedigii inantana halseeg sodohdana halseeg aniga waxba iseegi maayaan buu yidhiyo dee wuxuu iska ilaaliyey marka aniga iseegi mayso maanta halkan cidna ka duri maayo cidna ka dadafayna maayo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin tanoo kale in la dhooqeeyo siyaasad lagu dhooqeeyo maaha laakiin dee kaftanku way iska yara jiraa kaftanku way iska yara jiraa horta ilmaar mid baan ku dardaarmayaa war siyaasaddu dadka yaa kala kaxaynin waa wax maalmo soconaya yaan lagu culloobin yaan lagu kala tegin waa wiig iyo 2 wiig iyo bilo iyo waxaan ka badnayn waa inta tartanku jiro uun inta tartanku jiro ayay jirtaa yaan dadnimadu inagaga baabiin oo dhaqanka iyo ummadnimadii islaamnimadu yay inagaga baabiin waa iga qodobka la waxa weeye Cabdirasaaq Khaliif iyo Faratoon waa laba nin oo Soomaaliland tartan baa ka dhaxeeya waa tol way soo adeer way isku deegaan way isku waalid yaynan midna la culuubin midna la saaxiibine kii noqdaaba waa nin reer Soomaaliland oo gudoomiye golaha baarlamaanka kii noqdana waa soo dhaweynayna laakiin tartan baa ka dhaxeeya tartanka yana isku ceebsan tartan turxaan la'aan u baahanay qodobka ugu dambeeya kaftiga waxa weeye walaalkay Maxamuud Xaashi anagu laba albaab isku xigaano isku soo kornay inkastoo iga weynaa saaxiibaan nahay hooyooyin ka saaxiibay ahaayeen kibada kafta ku tuuray waxa weeye Cabdirasaaq Khaliif isaga u sababahay inuu wasiir noqdo Maxamuud Xaashi Faratoonna tan u dambeysay wasiirka ku noqday isaga Ingiriiska uga yeeray labadaba saaxiib u lahaa Maxamuud bali ma waxad ku kala raacday nooc cadeen labadoodii wassalaamu calaykum anigu haddii dad badan hadal iga sugayeen maanta odhan maayo maalin kale aan u dhiganayaa waana rajaynayaa inay maalintaas iman doonto iyadoo dhow talabaadna qoladan kulmiya waxa ay xoogaa israahdeen xayisiya nin maqano de wuxuu ahaa uu la maqan yahay waxba ka sheegi mayne de wuxuu ahaa uu la maqan yahay mid joogaan hadal haynaayo dadka tusaynaayo maqan ma aha maqan baan degay maahe anagu mid jooga ayaanu de amaanaynaayo ragale waar way ku celcelinayaan laba isweydiiyey gel mid ku heesayo waar hees badanaa buu yidhiyo ar waxaynu ku heesneen ahayn inaga daabuy warna waxaanu ku heesnaanu haynaayo gola keenayo golahana way joogaan reer booramana xasan oo keliya uma wadee dee waxaanu wadnaa shirgudoonkiina waxbaanu ka siino waxaanu soo ku saami qaybsiga ka caban jiray shirgudoonkiina waxbaanu ka siinayo shirgudoonkii aa ka qadiseen waxbaanu ka siino weliba ma maqnay dee wuu joogaayo waa Cali Xamuud oo kaalka ka hadlayay marka labadaaba waan isku darayo labadaaba waa isbarbar wadnaa haddii alla ka dhigo marka waxaan leeyahay uun waxba mushkiladii ma jirto waa tartano waa la isu iman doono waa markiisa halkan waa fagaaraha hoosoo waxaynu isaga celcelinaynaa uun fagaaraha iyo wixii kaftan ku habboon laakiinse waxba culays ha dareeminay inta lagu heesaya raggiina wuu joogaa dee waxaananu isleenahay gobolkana waxbaad tarteeno gobolkana waa ka jawaabteen waxyaalihii u tabayay wax ka mid ah ninka odhanaya dee boorame sad uma baahnowna dee adigaa sheeg waa ka baxay oo salaamati berigaanu mucaaradka ahayn ayaan aanu baarlamaankana ku cusbay ayaan aniga iyo duur nala hadlayoo maxamed nuur caraale dabeedna wuxuu yidhi haddaad mikrofoon hesho oo aad mucaarad tahay ka masaajidkana ha ahaadee waxoogaa tuuro oo yuu kaa baxsan markaa mucaaradkan dabeecaddiisa aqaano mar hadduu mucaarad helo mar hadduu mikrofoon helo wixiisa yar wuu tuuranayaa marka iyada intaa waa loo ogolya marka halkaa u dhaafi maayo ninkii odayga ahaa la sheegay ee la yidhi Faratoon waa maqan yahayna 93 markii halkan boorame lagu yegeelayna waa joogay oo rag yegleelay baa ahaa taana wax xasuusnaada marka hal la istirsado shaqaduna way socotaa dhawaana insha Allah taala sidii milgaha iyo sharafta lahayd
Soomaaliland lagu yaqaanay ciddii qabataba waynu hambalyeyn doonaa qarankaynu shaqaynaynaa wixii ka horeeyana waa kaftan siyaasadeed iyo wixii shuruucda iyo dastuurka iyo qawaaniintu inoo baneeyeen waxa ugu muhiimsan in qalbi wanaag iyo isjacayl iyo walaaltinimo iyo hadafkeena guud ah Soomaaliland adduunyada magaca ay ku leedahay ay xoojiso inaynu ka wada shaqeyno baa inoo balana dhammaantiin waad mahadsantihiin